وزير الدولة أنا هو فهم لا معناها وزير الدولة محوي نينك دنا جوب الله يرحل هذا هنكيس وحوي جوب هنكيس وحوي وزير الدولة هي أجاسمها إيش كمدها أجاسمها حتى كسر وزير الدولة ما هو وزير عادي ما قاري ما لها حفيظ ما لها هرطة يعني كوحدة MBB نتشمع واحد فوق قرنيسة واحد قاتل عاو وزير كأمنية أوكي وحكى لي قاتل وزير الدولة نمضينا المحي قاتل نمضينا الوحي قاتل هرطة ماشين إنه إلى لين قارك كهين وحويه وهو مقراص هاي وصومالي مقراص هاي وحويه وسردون كقرنك هدي الله ينقى قادم لعاوة أرنتها سوحي هان ليد ولا ينقى قوليست لكن سردون كقرنك بدحولو حود دايي نيكي هروه ياسين فريب اللو دايي ما دام ومدحوينو قعنتا كو هاي اسغانا سو مغعابي مدحوينها سردون كسو مغعابيا هيدا النساء هدي عاوة وروب لا سو مغعابي لها خلاص ولا ينقى بديو waxa weeye de waxba way jabay lahayd ciidan jabay noqon lahayd runtaan idin sheegay waxaan oran lahayd haddaan caawa anigu arki lahaa roob la oo soo magacaabaya hay'adda nisa hala shargareey barnaamijka si wada shargareey dhamaantiin roob la oo soo magacaabaya haddii aan arki lahaa hay'adda nisa waxaan boqolkiiba boqol aamini lahaa in toos la inooga gacan sareeyay leenaga guuleystay oo guul u gaaray rooble laakiin taas ma dhicin hay'adda sirdoonka yaasiin fari baa loo daayay farmaajaana digreeto ku soo magacaabaya horta waxa ka nasataan hay'addii sirdoonka waxa la wareegay oo toos u haya madaxweynaha ama Fahad Yaasiin ku soo celiyo ama nin kale ha keeno ama nin magaraysa Fahad ka khatarsan ha keeno arintaas farmaajo gacanta ugu jirta taas horta alxamdulillah baan leeyahay waa sirdoonka hadii Kenya ay gacan ugu wadamo shisheeye haddii ay gacan la soo gelaayeen arinta ay naga guuleysan laayeen wadanka sirtiisu way bixi lahayd marka horta sirdoonkii yaasiin fari waa guul soo qora dhamaantiin intiina daawanaysa siina sheegareeya guulna soo qora guul farmaajo guul kooxda MBB niman aan go'aan lahayn weeyaan go'aanka caaw la gaaray hadhow baad arki doontaa iyagoo leh waa lana gaaday siyaasadda ma yaqaanaan MBB siyaasadda ma yaqaanaan goor dambe wax fahmaan oo say yiraahdaan imika arkay qaar soo qoriya mar hadii yaasiin fari meesha joogo Fahad Yaasiin baa jooga yaasiin fari iyo Fahad Yaasiin waa isku mid waxa weeye roobla waa la gaaday roobla waa nacas roobla caayay imika roobla la caayay roobla leey waa doqon roobla waxa weeye muxuu la aamusnaa kiiskii ikraan tahliilna kiiskii la yaabana taqaana kiiskii barankada ahayd ee ikraan tahliilna meesha waa laga saaray farmaajo horta maxaa la isku qabsaday Soomaaliyeey cidda qaladka waday baa idin sheegay roob loo haay maxaa la isku qabsaday marka hore in dadkan xilka laga qaado in wasiirka amniga la bedelo in magaranayay goob shaqada loo diido in waxan maxaa la isku qabsaday khilaafku wuxuu ka soo bilaabmay sheekadii barankada ahayd ee ikraan tahliil ayaan xaq loo raadinayay wax noocaas ah iyo ikraan tahliil iyo sheekadeeda hal la joojiyo ayaa la isku haystay sheekada ikraan tahliil ma jirto beenta joojiye baa lahaa iyaguna waxay lahayd ikraan tahliil baa xaq helaysa horta sheekadii ikraan tahliil meesha kuma jirtaba caaw waa laga saaray ikraan tahliil wax xaq loo raadinayay yaasiin baa lagu wareejiyay yaasiin fari baa lagu wareejiyay waan arkay nimankii MBB oo leh wayn jabnay wallahi waxay leeyahay taqaana wayn jabnay mar hadii si wada shargareey barnaamijka waxay yiraahdeen mar hadii yaasiin fari lagu wareejiyay arintii magaranaysa ikraan tahliilba waxba warbayno ma yaalaanba nimankii ka dacwoonayna baa lagu wareejiyay wayn jabnay horta ay sheekadii ikraan tahliil ee la isku haystay yaasiin fari baa lagu wareejiyay arintaas waa ku deysay sheekad dambe oo campaign dambe lagu galayo ikraan tahliil baa xaqeedii la raadinayana waa soo dhamaaday waa war cadaaday ma qodobka ma fahanteen sheekada ikraan tahliil war cadaaday soo dhamaaday buu noqday cid dambe oo meelaha ka qeynayso oo ikraan tahliil lama arki doono iyo sawir cid soo saaranaysa sheekada soo dhamaatay gobannimo waayi meesha waxa u jooga MBB meesha waxa ku hayaan wasiir dawle goobaha looga dhigo wasiir dawle muxuu agaasima dhaama agaasima ku xigeen baa dhaama wasiir ku xigeen baa dhaama
niman kale soo hanba malahaba war nimankan wasiir dawlad meelaha laga dhigo rooblow shan kalena soo magac shan kalena meesha keen shan nin oo kalena meesha keen wasiir dawlad lagaga dhigay ilaa wasiir dawlad wuxuu inay istaabay farmaajo horta waa siyaasi waa very smart guy nimankan siyaasi buu ku dilay siyaasad wasiir dawlad waana qabalnay wasiir dawlaha waana qabalnay bashir goobo samaha wasiir dawlad laga dhigay wuxuu haystaa in wasiir laga dhigay war wasiir ma aha wasiir dawlad xafiis ma laha gaari ma laha budget ma laha maxaa meesha ku haysaa arrintii horta ikraan tahliil يعني داقد ما كسر أرت أنت إكران تهليل بوقي أجوجون ويدين داقد ما كسرني هدان هاي النبضي النور والله بالله تاريخ ذي كين يبدل اللي يقول يستي يجوش عاو واس كمد مقرات عاو روح اللي يقول يستي نماك معارض كهاي مراك قيلين شريه روبله عقلي كحري روبله هرت عاو تليفون مويسن روبله عاو تليفون مويسن وده هديو تليفون هيستو قان مو قاري إن عبد الشكور بكلم مسج صغير له إن عبد الشكور أيوة كلم مسج صغير له أنا ورسايل تا أقول لها مركع عاورت التليفون ما يسن روبله أرنتن من كلام أنا وحقيقة كهله هشيس كان نمبايس كله وصور دمية مركع هراء روبله عباشة يسقى قدبي يسقى مجران ساي فرماتها اللي يجي أرنت waxa horta soo dhiraandiriyay oo labada ninba magaraas arintooda soo bilaabay qorqor lafta green waa dhameystiray oo waan u qiraya inuu caawa dhameystiray lafta green laakiin liminta waxa iska leh qorqor roble horta inuu xaasid yeebay sheegay horta roble waa xaasid wallahi roble waa xaasid heshiiskan waxa iska ahaa oo yaani sumcadda maca ku hela madaxweynihii baa leeyahay heshiisiyay دي سمعتها هي اللعاب قربها لكن نك الربلة اللي هذا نكا إلى ذيركيا أول بيسكوها بالقدير كيجين أو يسقون الدي هي مقرانسة ساعتك كنا وياهي سليمان صموهين نكا سوحو كلاد دجال الله مياه قرب أرنت هذا دمية وديدية بالربلة إنه حاسد يبقى دي شيء حتى ريرك وياهي وكتر سيا هاي ولا لا يوها بالقدير وما هو قال اللي بنت عاول اللي بنت وحقاتي لفت جرين باقاتي بالليل هاي لكن اللي بنت واحد سكلها أو روبله فرماتشو أرنتاس كلا حلي وأرنتا مقرانس سود ميو فرماتشا كد جيه وكل حلقة كقادم نيجي كم سلحي هرتاني هو النعم يعني هو جزار هرت الروبله وجزار وروحوا كل جزاري نيجي لا قرقر ميانو هاي نيجي مقرانس هاي فرماتشو كهني مركي لما قعابي يسوع مقعابي مركي لما قعابي أول قرقر صون ننسى لبانا ما روبله هو حاسد دلائي غلطك أنا قاعد يشيكني وحاسد وقف حاسده نينكا إناديركي أيو اللي بنتو دي روبله نينكي ماشان كان هلا والله شاكري برامج كسي شاكري روبله نينكي ماشا كاني فرماتشا إسباري رئيسو ساراي اللي قد يقول سو تشيدي سو بربوس جري وحو لفتا جرين بس وغريسا لفتا جرين عاوها نيو دقيست لفتا جرين صورون بولا جري مدحوينها إيو رئيسو سارا وقتيس لدمي صورون بولا جري ما هاني اللي بنتا نينكا إسكالها أنا سيتي بنو شيغيا غير الله يتقانا سومالي بين با كنو شيني خوخا اللي بنت waxa iska leh qorqor baan ugu siinaya tanks baan leeyahay maadaama farmaajo aad ka maslaxday ninka laakiin taasoo ku qirimay arwa kaas roob laha uu samahad celiyo qorqor iyo dagaal ku qaada ma ahaanay uma soo mahad celinayo hadhow wuxuu leeyahay isku reer baan hayo caynka war horta Soomaaliyeed shay qabyaaladda iska daay qabyaaladda in adeerkaaga ka ku xiga kugu daran والله قبيلة إسكت ضعف وحين نكى ودانية الصومالي وحكمنا يتاجرا إما كقرقر وحو كلا دجال لما يروبله إنه عاوا اللي متاقعته وده هذا وده إلا بيني هرب هوش واحد كتير لفظ جرين محوجة أنا أقول لفظ جرين يعني ما نين دي دمه هي هدول اللي مسود دوي أنا أقول حلا هاي ويرحل حاله يا أنتي وقدم بيسون بقبتي لفت جرين وحي راي وقدم بيه دم جران ساي أن دم معناها وين هاي أيوم بقبتي لكن هشيس كم حسود دمية بلاغي فري جوش الدقي كسر شقيي بدحوين قرقر لباح دالي وين كاسو نكا عمامدي سلامة هيسن كارو قرقر وان نرجع لكن ضغنت حاسد نكاس أوكي
qorqor bayn arrintaa u celinaynaa lafta green dad badan oo reer koonfur galbeed ah moodaya inaan anugu lafta green si gaar u haysto anugu lafta green ma haysto dad baa moodaya inaan si gaar u haysto on leeyahay waxba muu dhammayn waxbana maaha saas maaha lafta green wixii ugu dambeeyey wuu isku sawiray madaxweynaha hawshiina khaatimadii buu qaatay khatinkii buu qaatay ayaan odhan karnaa markaa lafta greenna waa mahadsan yahay maxaa isaga laftiisu waa mahadsan yahay lafta greenna waa mahadsan yahay okay haddaba aynu bal comparison bay markaa samaynayna horta sheekada gabadha la yidhaahdo hal la sheergareeya barnaamijka sii sheergareeya niyo horta heshiiskan dadka oo dhan way soo dhaweynayaan waxay dadku leeyihiin ma garanaysa weliba dadka dowladda taageersan madaxweynaha waxaan arkay dad leh ma garanaysa madaxweynuhu cabdilaahi 30 milyan haysta inuu xilka u magacaabo ma ahayn inuu ogolaado ma ahayn wala cabdilaahi 30 milyan haysta oo wasiirka amniga boos weyn maaha haddii niyo hay'adda nisa madaxweynuhu gacanta ku hayo hay'adda amniga hay'adda nisa ayaa ma garanaysa astirta waddanka haysa wasiirkana waa wasiir meesha iska fadhiyo weyn wax ma qabanayo wasiirka amnigu boos weyn maaha sirna ma ka shaqeeyo amniga iyo dadka isdagaalay iyo dadka budka isku dhuftay iyo dadka islaayay waxaas ayuu dhex gelayaa iyo qof baa islaam dakhartay waxaas ka shaqeeya horta wasiirka amnigu boos weyn maaha wasiirka hay'adda nisa oo yaasiin faray iminka uu joogo booskaasaa boos weyn haddii caawa madaxweynaha booskaa laga qaadi lahaa life maan soo galay haddii caawa ma garanaysaayey uu sii shargaraya okay waxa weeye haddii aan koolka hadhow waan furi doonaa horta haddii caawa ma garanaysaayey haddii caawa ma garanaysaayey dee madaxweynaha hay'adda nisa laga qaadi lahaa oo la odhan lahaa nisana waxa soo magacaabaya rooble hebelow waxa soo magacaabaya hebel arrintu dee way xumaan lahay mooryaanta MBB mooryaanta baraha bulshada caawa kamaan seexdeen wallahi inaan ka seexdeen laakiin imika way calaacalayaan bal orda soo eega Facebook waxay ku soo qoriyeen rooble waa doqon rooble waxa weeye magarasas yaasiin fari baa booskiisii jooga farmaajana hadduu doono fahad buu soo magacaabaya mar hadduu yaasiin fari joogana yaasiin magarasay fahad yaasiinna waa jooga meesha muxuu waxay lahaayeen muxuu rooble bariyahaas oo dhan lahaa waan dagaalamaya bulaha soma kiiska igraan tahliil ayaan u dagaalamaya igraan tahliil oo ka saa ka hadlo kama hadli karade qodobadii meelay kuwan hayn bal suganiyo qodobadii meelay kuwan hayn igraan tahliil yaasiin baa loo xisaaray mawsiirka amniga loo xisaaray waraadar been baa ku nooshin been wallahi billahi tallahi loo xisaaray waxa loo xisaaray yaasiin fari baa kiiska gabadha igraan tahliil loo xisaaray wasiirkan adii sheegaysa waa kuma wasiirkan ma garanaysaayey war labada bilood ee meesha war adeer laba bilood ma hadhini ma bil meesha wasiirkan 30 milyan haystaa bil buu meesha sii joogayaa bil buu sii joogayaa meesha ma fahant bil buu meesha sii joogayaa bishaasna waxa weeye rooble si uu lacagta ugu lahaa uu ka uga helo yani rooble lacag ku leeyahay soma waxa la yiri xafiiska joog lacagna ma garanaysaa adigu dadkii islaaya istaqdakhra dumarkii islaaya iyo dumarkii waxaas ka shaqee wixii istaqra iyo wixii waxaas ka shaqee labada bilood buu bisha waliba labada bilood wax yar la ayuu joogayaa meeshaas wax hawlo u qabanaya ma jirto magdhowgii ma garanaysaa deyntii aad ku lahayd rooble ka qaado ka raadso farmaajo wala hadda waxa lagu yiri farmaajo ninkan ma garanaysaa ra'iisul wasaaraha awoodiisa dhintay lacag baa lagu leeyahay mushkilad baa haysata ninka inta u daa raganimada qaado oo inta farmaajo u daa ninka wasiirka u daa waa loo daayay ninka soo haray Bashir Goobana muxuu noqonayaa Bashir Goobe ma waxa ku qanacsantii inuu wasiir dawladda inna lillahi war meesh maxaa lagu dhintay war soo MBB way dhimatay waa dad dhintay weyn wasiir dawladda miyaa u dabaaldegaysan okay wasiir dawladda hadda u dabaaldegaysan wasiirka ciyaaraha u dabaaldega kaan wala isku daraya shan wasiir dawladda la siiyay oo la way dabaaldegayaan war siyaasaddu waa la iskaga badiyay soo ma garan lixda qodob baa waxay sheegayaan farmaajo inuu saxsanaa bay sheegayaan kiiskii ikraan tahliil ee la qaylinay dadkii qaylinay meyn bal uu kuma shangaray dadkii ikraan tahliil ku qaylinay waa kuma roob laba caawa isagii codsi wato le madaxweyne cafidahay
روبل عفسك إسقى دلبضي هدي أنا دلبان لهينا هرت روبل واحد لقى سعيدية متقنع ميلا لقى سعيدية بدي شيء روبل واحد لقى سعيدية روبل هرت واكي قدر تجي زي ما يدوي روبل واكي عري قدر بوتجي قدر ميو أفيقانا روبل أف عربي ما يقان أف عربي كم هذا روبل إنجليش باب بورد نتبو كهلا لوقت كلو كهلا مجرتو markii uu tagay meeshaas keebaan tuuraa waan tuuraya qofka isoo sheeg isoo qor magaciisa waan tuuraya problem luqadu ku hadlaa ma jirto gadar buu tagay gadar ya aabaka gadar waxa aabaka ah libaax dhalay Fahad Yaasiin dawladda gadar waxay aaminsan tahay oo ay rumaysan tahay yaani magaranaysa ay aaminaada ma ka hadlaytid laakiin waxay aaminsan tahay oo rumaysan tahay oo si fiican magaranaysa ay ula shaqeysaa Fahad Yaasiin روبل واكي قدر تجي لعق بود دونتي فهد بات تلفون كل هذي وحلقولي وأنا كاس أودي سوا والله دمي ريزو سار معها وحلقة يعني يتقاعدين إن شقاي مك ما هيو ومجرانس يعني لسود وين بالي صون قرن هرت الساسو كسون نقدي نكلا هذا روبل قدر وحوي فرمرم بكرة صون نقدي نقالك مسهلين لعق تربي مسهلين واي والله شيء قدر وحوي وركب ولا سعتها قدر وركب ولا سعتها واي هبينكي أودي سلمي هاي مقراس شرن كان لهذا مقراس الجزيرة بالدبو يقول نقطة الجزيرة دبو بان ويساقرت هبينك واحد تري رئيس وزراء أودي نايب الرئيس بالله نايب الرئيس بالله يقانا مقراس هاي برايم مينستر كا رئيس الوزراء بالله رئيس الوزراء بالله هذا واحد تري روبل أودي سي والله دمي ما دام الله دمي قدر واحد كترنيه هشيسنا مقراس هاي هشيسنا دين لما قلي كرتيد وحملت دين نوم قبل كرتيد أنه فهد ياسين بن أمسن هاي مركز روبل وسكن قبل فهد ياسين بتوصل هذا روبل محو كل هذا لو قد ما يقان روبل عربي ما يقان روبل أولي عرب كهذا ما عرفت والفهد ياسين هو جيس وان لتشنوي نكاسر وحوي قدر السجا إسكالي وملكي لها قدر السجا بالو ودك يعني وحده دونك سمين كلام سمين كلام مركان نكن مسكين كي روبل اللي هلو هوالنا صومالي هوالنا روبل اللي هلو عاو عيب ودح شيفا وإمس بلود بيمكن تجلمي محو كنت تجلمي يعني هرتو نكون محو دوني روبل وحن دوني محي هاي صدح بلود أمال بدي بلود اللي صور ضعفي كيس كيران تهليله بينه كاني عاونا وكا فرم مرين بوك تاجي وكان قضبضي عاو في الصوماليا في الصوماليا إمك أيه ورصحافات سيدايين ورصحافات كهرتا أرنتن هشيس كان والنا قاضيو هدوبا مقران ساي وحوي مدحوينو والنا قاضيو ما أقبلينو هشيس كان واسع يحدين ما كان بحكرتان ولي منه حفيز كان مقران ساي روبله سوق مركبه وهادلين iyaga war saxaafadeed ka guureeyay farmaajo waa u aamusay farmaajo inuu siyaasi wax ku garaysa inuu ku soo qoraal soo qoreen qoraalka imika filada ka soo baxay aan akhrino qoraalka filada ka soo baxay wani wallahi ninka farmaajo yaa waxa weeye caruurtan agabarad siyaasadda waxa weeye siyaasadda roob la iska soo galay ma yaqaan siyaasadda waxa kuma yaqaan waa miskiin wallahi waan ka naxay caaw waa kan ورصحافات مقدشة أكتوبر كل لا تنكا لبض مجران ساي إلهون حريستو سياد برا وحوي سياد برنا إلهون حريستو صقر وين كلنا يشان مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماتشو يهرز وزارها أودي سال دمي حكومة فدرالك الصومالية مدن حسين روبلي أيا اللقوة حلي قطب بدن دردرجلينتها حولها دورشوينك قطب حكومات xoojinta wada shaqeynta iyo dardargelinta hay'adaha amniga qaranka qodobka labaad ee 3 xalinta kala aragti doonaanshaha ka dhashay hoggaanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka nisa yaa maamulaya Fahad waxa maamulaya Yaasiin Fari yaa magacaabay ma roob la magacaabay maya Yaasiin Fari waxa magacaabay farmaajo halkaasna waxaad garanaysaa inuu magaranaysaa farmaajo guuleystay كيس كإكران تهليل فرح يلا وحل صاري سوقرا كيس كإكران تهليل فرح يلا وحل صاري مرة بلا وحل صاري موسير كلا وحل صاري ومايا
isla kiiska ikraan tahliil faarax ee baraankada hana kiiskaas oo inuu been hadda waxaad ku garanaysaa ilaa hadda warba lagama hayo xataa waa la iloobay dadku iloobeenba kiiska ikraan tahliil faaraxna waxaa loo xil saaray yaasiin fari kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan madaxuna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danaha qaranka ayaa la isku raacay qodobadan ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raaceen in la dardar geliyo howlaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya inay sidaa ugu dhaqsiyaha badan leh ku bilaabaan usbuucan soo socda doorashada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya rooble caaw waxa soo nacdalaya oo yacni naftu ka baxsan tahay rooble berri marka la gaadho waxa soo nacdalaysa Jubbaland rooble nin jilicsan weeyaan tuug dhalay weeyaan waana khiyaamay ilaahay naarta ku fogeeyay rooble maamul goboleedadii ilaa isaga been u sheegay oo yiri kiis ikraan tahliil raabaan ayaan wareysanayaa oo dawladda wax weey hay'adda nisa anaga magacaabaya oo aniga cayn ka sameeynayo isaga bad galay rooble berri wax weey waxa dhibaato ku dhacdo waad ka doontaa waay wallahi isaga lagu la galay berri Jubbaland way soo ahaabadaysa Puntland way soo hadlaysa waad ka doontaa berri horta wartaagay rooble waxa ku dhacay wax jilacsan oo naag or ninkaas berri waxa ku dhacay way in si dhow ay wada shaqeeyaan hay'adaha amniga iyagoo xoog saaraya adkeynta amniga iyo xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ah dalku ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada ee al-shabaab in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka kaas waxa weeye waa wasiirkii 30 milyan haystay ayaa waxa la yiri shaqadiisa sii wato shaqadu qabanaya waa maxay wasiirka magarasa amnigu shaqadu qabanaya waxa shaqadiisu ma badnaba marka farmaajo waxa la yiri birta ka hor qaad miskiinka birta waa laga hor qaaday wasiir baa lagu magacaabay shirka wasiirada wada imanaysa golaha wasiirada waad isku sawiraysaa wasiirada laakiin wax shaqo oo qabanaysa ma jirto nabadii nolol shaqo u qaban maysid Cabdullaahi 30 milyan haysta wasiir caadi ma tihid adiga iyo Bashiir Goobe isku mid baatiin aan dhigeysano Bashiir Goobana in general Bashiir Goobe loo magacaabo wasiir dawle wallahi aad baan ugu qoslay wasiir dawle wala baadilay ninka islaanta Khadiija soo qaysay Khadiija la gaarsiiyay warkan waxa weeye arintaas waxayna tusaysaa in magaranaysa ay Bashiir Goobe islaanta Khadiija hortaana bartay dadku ma aqoon Bashiir Goobe waxa la yiraahdaa wadamo kale u shaqeeya marka Bashiir Goobena waxa laga dhigay wasiir dawle hay qodobka shanaad madaxda ayaa isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamed Faray uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka haddaad maqasho kusime booskaas isaga haynaya inta madaxweynuhu ka soo magacaabayo qof kale hay'adda sirdoonka hay'adda nisa waxa xaq u leh madaxweynaha ayaa digreeto ku soo saaraya digreetada waxa iskale madaxweynuhu qura horta mid ay sheegay Soomaaliya dawladnimada fahma dawladnimada ma taqaanaan ra'iisul wasaaruhu digreeto ma laha ra'iisul wasaaraha meesha waxa keenay madaxweynaha keenay Soomaa marka waxaan idin sheegayaa ninka rooble la ilaahay wax weyn ka dhigaysa farmaajo magacaabay farmaajo meeshan keenay farmaajana eri kara rooble يعني ما كان لي روب لا قولا ليري كرا حسن شيخ رئيس وزراء 8 jeer buu bedelay Sheekh Shariif رئيس وزراء badan buu yiri soo ma garan marka waxa weeye رئيس وزراء madaxweynaha meesha keena wax digreeto uu leeyahay ma jirto digreetada lagu leeyahay waxa lagu taliyaha nabad sugidda nisa hay'adda nisa ayaa lagu soo magacaabaya waxa iska leh farmaajo qora يعني رئيس وزراء digreeto ma laha marka digreeto madaxweynaha lagu soo saaray halkaan faham qodobkan si fiican u faham macnaha waxa weeye hay'adda nisa waxa mas'uul ka ah oo magacaabi kara madaxweynaha qura waa sababta Bashiir Goobe loogu diiday Bashiir Goobe soo magacaabay Bashiir Goobe roob la soo magacaabay Bashiir Goobe maxaa laga dhigay wasiir dawla laga dhigay wasiir dawla maxay wasiir dawla waa agaasimo ma garan saayay waxba ma dhaamo way
marka halka waxa ka dareemaysaa in madaxweynuhu digreetada leeyahay madaxda ayaa isku raacday in yaasiin cabdullaahi maxamed fari uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka inta madaxweynuhu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliyaha iyo taliye ku-xigeenka kadibna la soo marinayo golaha wasiirada si madaxweynuhu u soo saaro digreeto madaxweynuhu wuxuu soo magacaabayaa magarasa taliyaha hay'adda nisa waxa kale oo soo magacaabaya madaxweynuhu xaq u leeyahay ku-xigeenkana isaga xaq leh kadibna sida sharciga waxa la soo marinayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada kadibna madaxweynaha ayaa digreeto ku soo saaraya sida uu fahma dawladnimada hal la barto iska qaylqayliyo roob la wax sameeyay roob la magarasay roob la ayaa waxaan magarasa meesha maamula wax fahma dawladnimada hal la barto dawladnimada waxa kama taqaanaa ma maqlaysan dawladnimada hal la barto way qodobka lixaad muxuu yiri madaxda ayaa isku raacday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adda cadaaladda iyo garsoorka waxaana la farayaa hay'adda amniga inay gacan ku siiso hay'adda magarasa nisa ayaa loo daayay kiiskii Ikraan Tahliil yaasiin fari ayaa mas'uul ka ah dawaan iska fahmaysan kulli faad yaasiin horta farmaajo saaxiibkii faad yaasiin caaw wax dambi Allah istaa ma jirto farmaajo waxay saaxiib yihiin nin wanaagsan ay siyaasadana in badan ku soo jireen faad yaasiin farmaajo wuxuu ka dagaalamayay in ninkaas magarasa wadaniga ah sirdoonka ka soo shaqeeyay wadanka wax badan u taray faad yaasiin inaan la bahdilin buu ka dagaalamayay horta ninkii faad yaasiin banaanka ayuu joogaa waana libaax dhalay cid haysataana ma jirto dambigii iyo sheekadii la daba socdayna waa laga badbaadiyay halkaas horta waa guul weyn farmaajo ninkii ay isku baatanarka xagga siyaasadda haayeen inaan caaw wax dambi loo haysan farmaajo waa guul waa kow farmaajo waxa kale oo guul inuu magarasa ay hay'adda sirdoonka qaranka u magaca u sii daayay yaasiin fari oo hadhow isagu soo magacaabi doono gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labadaba inuu soo magacaabi doono waa guul laba waxa kale oo guul saddexaad madaxweynuhu wuxuu rabaa isagu in doorashada la dardargeliyo rabaa khilaafka sababta loo soo afjaray waa sidaas ila madaxweynuhu isagu doorashada ayuu u ordayay soma markaas wasiirkan aad arkaysaan muxuuha wasiirka amniga soddon milyan haysta wax yani wax boos weyn maaha way Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adda cadaaladda iyo garsoorka waxaana la farayaa hay'adaha amniga iyo inay gacan ku siiyaan ugu dambeyn madaxda qaranku waxay u mahad celinayaan madaxda dawladaha goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Lafta Green iyo mas'uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay mas'uuliyiinta kale waxa ku jira ninka kiiska soo dhameeyayna waa qorqor halkaas aad ka dareemaysaa iyo mas'uuliyiinta kale hawsha soo dhameeyay magarasa oo kamid yahay qorqor way madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin walwalkii ay dareemadii maalmihii la soo dhaafay iyagoo u ballan qaaday shacabka inay si midnimo leh ugu wada shaqeyn doonaan sida ay dalka ugu magarasa dhici lahayd doorasho hufan loona adkeyn lahaa amniga guud ee dalka dhamaad ma sha Allah horta waxa guula marka xifaaltanka aan rooble iyo waxa ka tago waxa kale guula madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa magarasa oo soo magacaabay isagu awoodiisa la dhimay inaan caawa beel caalam heshiisiin waa arrimaha positive-ka weyn marka inta si caadi u hadalno horta waa guul weyn inay labadooda wada hadlaan oo arrintii magarasa ay Soomaalinimo in arrintii lagu dhameeyo waa guul Soomaa loof soo dira iyo like muuqaalka loof saara horta intii arrintii inay Soomaali dhamayso oo beel caalam iyo magarasa ay Mareykan iyo gadar iyo inaan soo dhex gelin waa guul weyn sidaasana laga rabaa Soomaalinimada marka la isqabsado in loo soo noqdo magarasa ay wanaaga iyo wada hadalka cidda guuleysatay kulliyeed magarasa ay cidda qaldanayd waa la og yahay oo idin sheegi ma cidii qaldanayd iyo cidii propagandada waday waa la og yahay laakiin haddana arrintii anigu markii aan arkay inaanay caawa cid kale ku dhex jirin haddii caawa meesha James Suwan ma fadhiyo Soomaa horta Soomaaliya in hore u socoto waxa ku garanaysa Soomaaliya horta hore u socoto Soomaaliya
hore ayay u socotay caawa James Wan ma arkaysin miyuu ku dhex jiray waa maya Soomaaliya caawa James Wan kuma dhex jiro nin kale kuma dhex jiro gaal kuma dhex jiro munaafiq kale kuma dhex jiro Soomaaliya iyada heshiisay iyada garatay caynkaas madaxweynaha ayaana runtii aan ugu mahad celinaa maadaama maskax badan iyo siyaasad badan sameeyay isagu oo suudo waxa loo sameeyaa si doorasho loo qabto waan ogahay dad badan inay wasiirka 30 milyan haysta ay oran lahaayeen bahal la xiro laakiin is a good job shaqo wanaagsan baa la qabtay madaxweynuhu shaqo wanaagsan buu qabtay hay iska daayay horta wasiirkaasi kaasoo qoray wasiir maaha boqol wasiir bay haysana boqol wasiir beylaa jooga wasiiradii oo dhan baa jooga marka kaas hadduu wasiir iska ahaado wax badan ma qabanayo dawladdiina madaxweynihii in magaraansaay de shaqadii si fiican u socoto doorashadii la qabto ayaa muhiim maamul goboleedyada beri soo cabaadi doona odhan doona Rooble waa nin jilicsan Rooble waa beenlow waa kadaab waxa aan leeyahay Rooble yani danta uu run sheegtay Rooble aqli buu yeeshay gadar baa laga soo ceyriyay Rooble waa lagu kacay Rooble xilkiisu waayay lahaa Rooble ina waashaan baa rabtaan Axmed Madoobe beri haddaad soo cabaad lahayd iyo haddaad cirka u boodi lahayd adigay ku taala Puntland sidoo kale maamul goboleedyadii Rooble beenta u sheegi jiray xataa ina Cabdishakuur hadduu beri soo hadlo cid u jawaabaysan jirto ina Cabdishakuur waxaan aaminsanahay hadduu caawo magaraansaay Rooble la soo hadlaa inuu been u sheegi la oran lahaa heshiiska diid waxaan diid kulli beri waxay oran doonaan Rooble waa magaraansaay maskaxda laga qabsaday Rooble waxa weeye qalad buu sameeyay inuu yeelamay hayn inuu yiraahdo magaraansaay Yaasiin Fari baa taliyaha magaraansaay hay'adda nisa ahaanaya maaha waa qalad beri baad maqli doontaa waxaas Rooble waxaan u sheegayaa caawa waad isbadbaadisay oo de magaraansaay runtii waxa la oran karaa qaladaadkii badnaayad samaysay waad ka soo noqotay madaxweynaha adiga codsiga soo dalbaday in la hadashiyo ina magaraansaay madaxweynaha aad la fadhiisato wixiina magaraansaay waad saxiixday beri ha nagu noqonin baalkii oran jiray subxaanallah inkastoo aan lagu mahmaahin waxaas beri ha nagu noqonin inaad tiraahdo heshiiska hadana waan ka baxay heshiiska caawa aad saxiixday Rooble waxa sharaf ah inaan madaxweynaha iyo adiga magaraansaay dawlad caalamna idin soo dhaxgalin James Wan dhex fadhiin beesha caalamka aanay joogin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa yaraa ee meesha joogay wixii yaraa dhex yaallay ee dhameysteen ay iskuna waafaqeen sidii doorasho loo gaari lahaa Cabdullaahi gana ka hadlaysan hal bil buu meesha si joogay ama 2 bilood waxa si xilkan wasiiru dawladda gooba maca hadii wasiir loo magacaabo wasiir dawladda ka hadlaysan waxba ma soo kordhinay qof xil horta la magacaabay waxba lagu ma soo kordhiyo dawladnimada waxa ka garmaysan hebel baa xil loo magacaabay war xil la magacaabay waxba ma soo kordhiyo adigu wasiir dawladda ku qanacsan tahay oo meelaha wareejinaysa leedahay wasiir dawladda la magacaabay waxa la magacaabay wasiirka amniga labadaba waxa ka culus oo ka miisaan culus taliyaha hay'adda nisa ma taqaanaa hay'adda nisa waxay wadanka u qabataa ma taqaanaa horta waxa alxamdulillah in hay'adda nisa caawa gacanteena ku jirto waxaan aad uga shaksanaa inay magaraansaay intuu Rooble soo magacaabo nin Kenya ah Kenyaatiya meesha la keeno sirta wadanka oo dhan magaraansaay in Kenya oo ninka ku guuleysanay marka horta waxa waan hambalyeynaa Rooble laftiisa maadaama caawa uu de danta gartay uu dan qaatay dan buqaatay caawa Rooble ninka miskiinka Rooble waxaan leeyahay beriyan la soo caayin Rooble waxa ma dhimin maamul goboleedyada waxaan leeyahay ninka Rooble beri soo caayina dad badan baan maqli doona oran doona Rooble la helow dadkani waxaan ku nacay ma taqaanaa Rooble markuu dantiisa garto iyo cidii soo magacaawday iyo dawladnimada wax ka fahmo ayaa waxa soo caayay ku taageersanaa soo caayay waxaad maqli doontaa beriyada leey Rooble la helow waa la helay ma aha magaraansaay qabiilku sheeganayo dadka caaya waay Rooble yaa caayada ma naga caayna ma caynano no Rooble ma cayne dadkan wata marna caaya marna amaana ay waalan dadka waalan ee magaraansaay taageera ayaa marna ku sheega in la soo helay marna ku sheega magaraansaay nacas caynkan Rooble dadkaas caaya marka dadkii soo caayay jirayo beri waxa tiraadaan kiiskii kan tahliil buu ka baxay Rooble waa qof jilicsan Rooble waa sidan loo baahna waxa loo baahna iska ilaaliya taas waad ka wacdiyaya
laakiin waxa anu waan ku faraxsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama caawa beel caalam aanay soo dhaxgelin weldan xataa rooblo waxaan leeyahay weldan shaqo wanaagsan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo isagu ninka maskaxda ka dambaysa isagu taladiisa lagu socdo ya ninka maskaxdiisa lagu kala baxay waa farmaajo garta caawa aqliga farmaajo lagu kala baxay aqliga rooblo laguma kala bixin aqliga lagu kala baxay waa aqligii farmaajo marka waxaan leenahay madaxweyne shaqo wanaagsan baad qabatay dadkan siyaasadda aan aqoon siyaasadda bar macallin u noqo hawsha halka ka sii wad qodobka intaas ku dhaafaya marka waxaan leeyahay reer nabadii nolol waa guul labaad weeyaan walaalihiin MBB soo dhaweeya way xanaaqsan yihiin waan dareensanahay iyagana waxaan leeyahay istajiya doorashadii baa dhacaysa farmaajo haddana soo noqonaya istajiya way farmaajo mar labaad soo noqonaya istajiya waxba qoladiina MBB waxaan leeyahay waxba ma garanaysaa carada badan iyo cayda iyo waxa iska daayay ma fiicna waxaas waxa weeye rooble waa guuleystay farmaajona waa guuleystay soo hambalyeeyeen ha isbedelin oo qaar baan arkay imika bilaabay yiri waxaan kiis heshiis maaha waxa weeye rooble la dhacay rooble waa doqon caynkan rooblaha cayna idinka dirtay rooblaha cayna anagu farmaajo wuxuu soo qaado oo ku karsoonahay way qodobkaas intaasan kaga baxayaa waxaan rabaa yaabaan waxa yara jirjiray waxaan maqlayay gabadh burca ka soo hadashay oo tiri waxaan jecelahay barkhad gabadh burca reer burca oo tiri barkhad baan jecelahay baan ma arkayay niyow horta waxaan baa bariyaha nagu soo batay haddana waxaan maqlayaa dad kale oo iyaguna arrintii ka hadlaya haddana waxaan arkayaa mid la yidhaahdo buuni mid la yidhaahdo oo xisbiga kulmiye ku jira oo lahaa barkhad ma garanaysaayay barkhad baan lacag ka bixinayaa oo gabadhan ugu fadhiisanaya barkhad baan lacagta anaa kala dhiibayo oo gabadha anaa kugu fadhiisanaya gabadha waa reer burco waxaan maqlay inay reer burco tahay gabadh habar jeclaa tahay horta waan soo dhaweynaynaa laakiin waxa anigu aan la yaabay Soomaalida waxa lagu maahmaaha waxa la yiraahdaa aboor baa dunduma dhisay waa yaab waxa Soomaalida waxay tiraahdaa saddex arrin waa yaabkood aboor baa dunduma dhisay waa yaab habeen aboorku inuu dunduma dhiso waa yaab oo waxaad la yaabsama candhuuftiisu ku dhisayna waa yaabkii habeen madow u dhisayna waa yaab makaag buuni baa barkhad batuun ka bixinaya lacag waa yaab gabadhu ugu soo fadhiisanaya waa yaabkii dhaqaalo aad u buurana waa bixinaya waa yaab makaag marka waxaan horta leeyahay buuni xisbiga kulmiye caadi uma tirsana golaha dhexe xisbiga kulmiye kuma jiro xafiis ma laha gaari ma laha waa nin bahdilanba waaba nin dee magaranaysaa buuni waxaan ka sheegnaa wax yani nin magaranaysaa meel ka soo yani xataa wax ku tirsan maaha ninka buuni la leeyahy xisbiga uu ka tirsan yahay xataa ma aqoonsana afhayeenkiisu waxa weeye waa wax isagu iska sheegtun weyn markaa ninka noocaas waxaan leeyahay nin adigii baaba dhibaato ku haysataa oo xisbigii aan golii dhexe ku jirin xisbigii aan macaal isku hadlayn aan lahayn kolba qofkii lacaayo lagu diraa qofka lacaayo baa lagu diraa adiga buuniyo xisbigan kulmiye aad ku daba luntay deegaankaaga muxuu siiyey baarlamaankii deegaankaaga baarlamaankii xisbiga waxay diisiyay wuxuu ahaa xisbiyada mucaaradka ayaa waxay diisiyay oo waxay idin ogolaaday laakiin xisbiyada magaranaysa kulmiye waxay yiraahdeen xataa baarlamaanka magaranaysa ay waatii xubin ay ku yeelan weydeen gudoomiyaha koobaad ka labaad iyo ka saddexaad markaa waxaan la yaabay markuu buuni waxa ka hadlayaan la yaab buuni deegaankaaga kulmiye waxba siinba adna afiyeen baad sheegataa markaa miskiin baad meel iska fadhiisanayo miskiin dowrsanaya tahay meel fadhiiso way gabadhu horta waxaan ay ka hadlaysaa anigu waxaan u malaynayaa gabadhan le barkhad baan jecelahay caynkan baan jecelahay waxaan u malaynayaa inay niyow dumarkii arrin baa lagu qaatay bariyan waxa jirta waxa la yiraahdo waxa la raadinaya caanimo la raadinaya gabadha waxaan u malaynayaa waxa ku kalifaya ay dhibka u maraysaa waa sida caan u noqon lahayd ay kolba u leedahay nin baan jecelahay san baan u jecelahay marka fadlan waxaan leeyahay gabadha ha la booqdo intay dhibaato kala samayn lahayd ha la yiraahdo caan baa tahay dadka wax wanaagsan u soo gudbi arrimo wanaagsan ka hadal
sidaas magaranaysaa ha laga hadlo sidaas ha looga soo hadlo oo dee magaranaysaa gabadha ha lala soo taliyo haddii kale caanimada si xun baa lagu raadinaya soomaalida idinkaa dad xuna qofka waa la caawiya qofka markuu rabo caanimo caawiya maxay idin taraysa loof iyo like ku saaro waxay soo dhigtaa youtube furo ku dhawo wax wanaagsan ka hadla dhah marka qodobka intaas gabadhaas caanimo inay raadinaysan malaynayaa anigu waa sayna tahay okay hargeysa waxaa kaloo ka dhacay show ay ku qabsatay kiin jaamac waxaan arkay dadkiiyo magaranaysaa qaarna taageersan yihiin oo leeyihiin kiin jaamac baa magaranaysaa quraan lagu shiday